hay-adda Save the Children ayaa maanta tababar muddo 3 maalmood ah u socday 60 xubnood oo ka kala socday maamulayaasha iyo macallimiinta haweenka ah ee dugsiyada hoose dhexe ee Boorama soo gabagabaysay. Waxa ka mid ah muhiimadda ay leedahay ka qaybgalka waxbarashada ama wax dhigista macallinimada ee dumarka, sidoo kale xeerarka anshaxa iyo dhaqanka macallimiinta, sidoo kale siyaabaha looga hortagi karayo ama doorka macallimiintu ka qaadan karayaan xubnaha bulshada saameynta weyn ku leh. tababarkan oo qayb ka mashruuca loo yaqaan Iskooda BS oo ay maalgelinayaan Midowga Yurub ayaa mudane Axmed Abakar oo sarkaal ka socday hay'adda Save the Children oo mashruucan fulintiisa u dubdhaxaad u ah uu yidhi xaqiiqatan markaas ka ahaa markaa intii aan joogay inaad si aad u fiican oo haysarantii aad tababarka uga qayb gasheen tababarkan ujeedooyinkan kala hayna waxaan malaynayaa runtii si fiican u gaadhnay waxaan idinka dardaarmayaan kulay marka qofku macallin yahay mas'uuliyad weyn buu qaranka u hayaa wixii halkan ku barateen iyo markaa khibradiina dhanbayna markaa u gudbisaan macallimiinta kale. qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha tababarkan iyo marti sharaf kale oo halkaasi joogtay ayaa iyaga la fahantoodu waxay hoosta ka xariiqeen haddii aad doonto inaad bulshooyinka dalka aad beegsato oo aad dhaqanka fiican hormood ugu noqoto ninkaad beegsanaysaa macallinka weeye. waxyaabaha ka faa'iido waxaa ka mid ahaa qodobka la yiraahdo anshaxa maayarka magaalada Boorama Cabdiraxmaan Eeshida Bilay gudoomiyaha waxbarashada iyo tacliinta sare ee gobolka Awdal Axmed Ciga Riidaash ayaa ka qayb qaatayaasha tababarkan kula dardaarmay in wixii ay soo barteen ay bulshada dib ugu celiyaan. Cabdulla Ali Yusuf on Cable TV Boorama.